degmada Xamarweyne waxa ay kamid tahay degmooyinka ugu qadiimsan gobolka Banaadir waxa ku yaala wadooyin muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana wadooyinka dhexmara degmada saameeyay burburkii dalka ka dhacay maamulka degmada Xamarweyne ayaa wada horumaro dhinaca dib u dhiska wadooyinka ayadoo wadooyinka burbursan ee mara degmada Xamarweyne oo maamulka degmada oo kaashanaya gobolka Banaadir uu ku guuleystay inuu dhameystiro dayactirka qaar kamid ah wadooyinka muhiimka u ahaa degmada Xamarweyne iyo goobaha ganacsiga ee degmada sida kawaankii hilibka degmada Xamarweyne ayaa kamid ah goobaha maamulka uu ku guuleystay dayactirkeeda kaasi oo la soo gabagabeeyay dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameeyay arintan ayaa waxa ay qayb ka tahay horumarada kala duwan ee dhinacyada dib u dhiska wadooyinka iyo soo celinta bilicda degmada Xamarweyne goobaha ganacsiga taasi oo maamulka uu qorsheynayo in wadooyinka harsan uu dib u dhis iyo dayactir ku sameeyo qaar kamid ah shacabka ku nool degmada Xamarweyne ayaa bogaadiyay horumarada kala duwan ee ka soconaya degmada Yaasiin Maxamed Maxamuud anagoo ku hadlayo magaca gudiga kawaanka degmada Xamarweyne waanu mahad celinaynaa dhammaan gobolka Banaadir qaasatan maamulka degmada shaqadii wanaagsaneed ee meesha ay ka qabteen kawaanka hadda waa u jeedin bilicdiisa iyo sida ay taalo waxaan rajaynaynaa annaga in maamulkii si fiican oo si hagaajino shaqadina aan dhowrno qaybaha kale oo dhiman ay noo sii dhameystiraan annaga aan mas'uuliyadda saarana aan ka shaqeyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha siyaasadda iyo amniga degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Iidow Macalin Iidow ayaa ka hadlay howlaha lagu horumarinayo degmada hadda asna gabagaba maxuu ahay noo dhamaaday dhigitaankii saddex wado oo la dhigayo interlog sida hadda aad soo arkaysaba waa uu soo gabagaboobay hadda nadaafadii ayaan ku jirnaa waxaan hadda la furay guriga habka cusub gudoonka waxbarashada ama xafiiska waxbarashada gobolka Banaadir oo aduga sidii waa la jiriyay oo burbursanay ilaa xilligii maartay sagaashamii wixii ka dambeeyay haddana alxamdulillah waxaan ku guuleysanay in loo dhiso si moodo ah oo qurux badan hawlihii waxbarashada iyana way ka bilaabanayaan insha Allah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha siyaasadda iyo amniga degmada Xamarweyne Macalin Axmed Iidow ayaa sidoo kale ka hadlay goobaha ganacsiga iyo goobaha kale ee muhiimka ah waxyaabaha ugu qorsheysan maamulka ganacsatada gaar ahaan qolada hiliblayda iyo gudiga kawaanka in maaragtay ay ka faa'iideystaan maadaama nalalka ay noo xiran yihiin inuu noqdo suuq maaragtay u adeegaya dadka habeen iyo maalin waxaan rabnaa isbeddelkan inuu keeno isbeddel shaqo waxaan rabnaa habeenkii in shaqada maaragtay available ay tahay oo la heli karo haddii loo baahdo hilib waan u baahannahay subaxii oo kale qofka waxaa jirto accesskiisa uu maaragtay uu fiican yahay habeenkii qofkaasoo kale waa in uu habeenkii shaqada u helo maadaama nalalkii xiran yihiin la nidaamiyey miisaskii waxaan soo jeedinayaa in maaragtay si degdeg ah muxuu ahay ugu furo kawaanka habeenkiina maaragtay shaqada ay bilaabaan waxaa degmada Xamarweyne mudooyinkan ka soo kabanaysa burburkii ka muuqday wadooyinka iyo goobaha ganacsiga waxaana maamulku u wada dadaalo kala duwan oo wax ugu qabanayo horumarka iyo bilic soo celinta degmada Xamarweyne gobolka Banaadir Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho